بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب شرفت المركز جوجتي وحنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سكسو الله وشوعا الحمد لله إلهي ما دي سواي إنكو عافمات قبو أنا جو عافمات قبنو هدان صلاة بنا إلهي ما دي سواي لكن معلو بايا إنو يوتيوب كا إنكا كلا كعي كرو marka Soomaali dhan haday u kacdo meel kasta joogto oo ninka walaalku way caabi karaa maxay yeelay inuu si share gareeyaan subscribe saaraan like saaraan views ka fiiriyaan markasta ay daawadaan marka maxaa loo baahan yahay marka ininka waqti kasta caajiska iyo waxaas inuu iska dhaaftaan anagana wax kasta oo tayo leh iyo wax kasta oo cusub inuu soo gudbino xagga diinta oo kaleente waxyaalaha wanaag oo kaleente caafimaadka oo kale wax kasta inuu soo gudbina dalka oo kaleente marka waxaa loo baahan yahay marka ininkana inuu horumarkaas nool qaadataan marka walaalayaal maalmahan waxaan ugu batay faqsiga iyo diintii in laga tago oo qeyrkii yaraado oo faqsiga bato maxaa yeelay qofka bini aadanka adduunyo la soo ururiyay mid imtixaan ku mashquulo mid waxbarasho mid shaqo ku mashquulo mid ilaakum sa ganacsi ku mashquulo mid hanti leh waa la kala mashquulay hooya dhihin aaba dhihin abaaya dhihin aboowa dhihin marka dhammaan marka maxaa natiijadaas maxaa loo baahan yahay marka inuu sida adduunyada qofka adduunyada buriyaa waxaa loo baahan yahay inuu jaanisna naftiisa siiyo way aakhiradiisa shaqeysto adduunka inta buriyaysa nafta ka bixisa marka waxaa loo baahan yahay marka si arintaas ugu taxdirtay simbri faqsi inoo la yareeyo dadka maalmaha waxaa soo batay heesaha iyo fanaaniinta aad u qiimeeya marka taasoo kale waxaa lagu bixi karaa inuu qofka bini aadanka inuu ilaahay usoo noqdo oo ilaahay tooba keeno oo simbri oo diinta badsado oo xadiiska dhageysto waxaan arzaaq ma dhihiis maanta hadda oo heesaay noqon arzaaqadaas ma ilaahay horumar ma gaaris horumar ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gaarsii karo faqsina horumar ku gaartay meel ku gaaris maalka ku yeeritin waxa oo faa'iido leh mal sadaqan ka mid ay kartid waxa ka jeex kartid maal waxaa loo baahan yahay simbri inuu xoogaaga ku shaqeyso xoogaaga aad ku shaqeysaa oo mashquula marka waxaa loo baahan yahay inuu simbri aad sameysid oo jaanisna sii diinta ilaahay oo kamsiisto quraanka akhrisid xadiiska raacatid oo simbri oo dhageysta culimada oo wax baratid sidii aad naftadaada ugu waxay naftadaada oo aakhir ugu shaqeysid way adduunka wada tagay saa u ordays naf meel adoo marka ka shalaayaysa marka waxa soo kale waxaa loo baahan yahay simbri inuu diinta la baso quraanka la baso waxaas waxaan u wacyigelina waxyaalo badan aad ku dadka foorxano ku intiyo kala faqsi badan oo kala heesaa oo kala dhigisay leeyahay wax ka gaareen marka simbri waxaas oo kale waxaa lagu taxaa oo lagu sal gaari karaa bal aniga شيخ علي جبوت ولا له إلى في الصلاة أنا وحياة نشيء وحياة مهم أيوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيام نقول صف لنا الدنيا الدنيا علي وبالنصف مرقص يقول ما أصفها محني وصفيا أولها عناء وآخرها فناء وحلالها حساب وحرامها عذاب كي حال الدنيا كشيء قبل أول كيف وعناء وتعب والدال ضدك ما أنت الدنيا جوجا هيك قفل بودالية إنك يبقى دالك وأبيه يبقى دالك وفقيرك يبقى دالك وملقبيك يبقى دالك ومدحدي يبقى دالك وشعوبتي يبقى دالك وهو يبقى دالك وإنمتي يبقى دالك وجامعك يبقى دالك وكي مالك هيستاد دالك وكي فقيرك هذا دالك كي ميقى جوجا دالك كي ديارها وضيبها دالك أولها عناب علي بن أبي طالب وكاي بل أنا مركز وحوبا أنا إنه خير من سوق الدين الدين كان نيك مال كله وحلو باني إنه كفاية يسوع وسيل يصدق لك إنه واحد يسوع من وحلو باني ورالي على سوق الوالد أصحاب الشرف كله سين بالدين كدلالة إنه واحد برتان كدلالة إنه سين بال الله سبحانه وتعالى كدلالة كدلالة من تعدا واحد ما قشان نهابا نودع أيمان وكل خيرا كدرنا لا هي على طول شعبانا ودرا شعبان أو جرشن يكون له يكون ما تمر من تخيل إنه جنبين جنب أف لا إنه يجلسون إنه عمر ده يجلسون إنه دتك حنوس إنه عظمات لا يجلسون من تقف قصة بني آدم إنه على الغراسي صانك وقال عبادة يا فلان من تعالوا بين صانك يا سيد وقيت إنه الإمام لا إنه يجلس كان كيس كان لا إنه يجلس كان من الرسول المؤمن ما تسين بالخير على طريق ما تسوى عن يسوع بيا وحياة خير خير وعلو بين يسين يسوع بيا بس شعبان أو جرا وقت قصة وعلو بين خير إنه يجلس من ولاري على الخير كأنيجا سيمبل إنه كلا فائدين سنو إنك أجري حسنات كيشان أنا من أجري حسنات كيرو على بهاي من كولاري على واحد قصة إنك بتذكر سكرات إلى المصارع أصحاب الشرف كردت كرسي جارسيا سيدت كعلماء وقلامك إنه سجع بالإسكان دت هنتظر إنه هنتظر بعيان صدق بعيان دت مساكين واحد قصة على بهاي من سوى أصحاب الشرف كلا
أصحاب شركة سود بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.